بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan helay ninka la yiraahdo warkii oo sheekh Umar oo dambe wax iga galay kii dambe waay kii hore marka sida badanaa ma horta laba arrimood waxaan rabaa inaan dadka aan u sheego. mid waxa weeyaan waa mid hadda aniga nimankaani sidaan dhowr goorba sheegay isku safay yihiin kulligood oo xagga mabda'an sheegaya mabda'a isku safay yihiin oo hadda markii si loo eegana hadda aniga yani labadii nin oo hadda isaga kay dambeysay oo xarigayga isaga kay dambeysay sida runtaa waxa weeyaan hadda ninkan dambe ayaa xoogaa ii dabacsan yani si waxaan rabaa maanta warka aan raba inaan sheego inuusan ku dhisnayn bahalkii maxay ahayd xumayn oo aniga gaar ahaan la xumeeyey inuusan ku dhisnayn aan raba intii tabarteeya aan si aqoona aan uga hadlo garasho odayaasha waxay dhahaan ilaahow eexna hanugu day bahalkii muxuu ahaa garashana hanugu ciqaabinay dhahaan يعني marka eexdu waxun waaye bahashi garashadaasi waxa weey waa la isugu cudub daara garashadu waa la isugu cudub daara marka garashadayda marka uga hadlahaya hadda wax gaar ah waliba hadee waxyaalo badan oo dadka ka dhaxeeya qaraabanimo naga dhaxaysa wax xididnimo naga dhaxaysa badan dadka ka dhaxeeya alxamdulillah marka waa laga yaabaa maartay inay wax ii tareen waa iska dhici kartaa walow dhalashada markii la yiraahdo ku hore iga dhawaayeen laakiin xagga oo maartay qaab darrada iyaga ii liitay laakiin waxaan maartay ilaahay xil uu naga saaray oo waa nooc cadaalad ah ama ku dhow inaan u qaabilno mid marka waa midaas waa midda aniga xaggayga ah oo si aan maartay dadku aysan waxyaalahan socdo oo qashinka ah oo qabyaalada iyo waxyaalaha caynkaas iyo wax aniga mesela la ii dhibay iyo inaysan maartay arinta aysan ta'thir inaysan ku yeelanaa jeclahay waa iska dhici kartaa nin jirkii lahaayo jirida kama qoslo waa iska dhici kartaa laakiin macnaha intii tabartay waa isku dayayaa inaan maartay ama waa isku dayaa inaan ka fogaanin cadaaladda inaan ka fogaanin ilaahayna hana waafajiyo. midda labaad oo aan aaminsanahay waxay tahay dawladdu inay oo maartay ay iyadu adkaatana waa wax oo dabcigayga waa dawladnimadu inay adkaato oo dawladnimo iyo fawdo dawladnimadu inay ka adkaato oo wax weeyaan anigana dabcigayga waa wasaas maartay waana sax waaye yani cilmi ahaanayna sax tahay markii mabda'a aan laga hadlin laakiin dawladnimada iyo fawdada dawladnimada roor marka taasna waxa weeyaan inaan loo fahmin inaan maartay aniga yani fawdada inaan maartay aan rabo inaysan ahayn. midda saddexaad waxa weeyaan ninka oo anigu maartay aan aaminsanahay yani waxaan ba iraahdaa yani nin madaxa hadduu waalid yahay iyo hadduu macallin yahay iyo hadduu madax umadeed yahaba niman xaraaro lahaynu wax ma wadi karaan iraahda yani waalidkuna hadduusan xaraaro lahayn ilmuhu waa ka dhumaayaan macallinkuna hadduusan xaraaro lahayn ilmaha wax ma bari karo ninka maarta madaxda hadduusan xaraaro lahaynna wax ma wadi karo
laakiin waxyaalaha marka laakiin mid walba waa inuu qaanuun leeyahay qaanuun oo ku socdo oo ilaaliyo oo loo ilaaliyo oo loogu garaabo waa inuu leeyahay مثلا مارتي محلكو مارتي والدكنا عنقو وحنا قبل مارتي هدو بوريو هدي مارتي بالكي محي هاد او مارتي يعني اما او مارتي يراهد اورد ايغا تاكسيدا قالدو با اي قبطو او مارتي المها مركز مارتي 18 قاربه اي مارتي يراهدان ماشي تربتاات سو وجود انكاس waxa weeyaan caruurtu waa ka dhumay macallinkuna hadoo maartay de usha waa loo ogol yahay inuu cunuga xanuujiyo waa loo ogol yahay laakiin hadoo indhaha ka rida ka waran ama dhagaha ka gooyo ama ilkaha ka jabiyo ama gacmaha ka jabiyo lugaha يعني ماشي مالتي waxa la dhahayaa مالتي ماشي يعني quraan lagu baran maayo waxa weeyaan waa dad qalasho waaya la oranaay soo jeeda marka wax weeyaan ninka madaxda ahna waa sax soo hadoosan isagana qaanuun ku soconin oo san qaanuun oo salahayn oo ilaaliyo oo loo ilaaliyo oo lagu la socdo oo maartay bahalkii wax dadka wax ku marsiin karo waxna kaga celin karo wax weeyaan isagana wax weeyaan meeshii wax imaanaya dulmiya imaanaya wax weeyaan waa lagu gariifaya إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع علينا هذا دونتين إن لو أضيعه وحلا كري كرو ما ارتدتك أمر الله إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع شو وجهت ما ساسوا مركا وحويا نظمته وحويا يعني وحويا دول كسيدة بدن هذا نظام على كرسعودة يعني مرر ويسور إحقشا يعني هو وصور إحقشا واجسته ونك مدحدان إن أسجى هو قشو ضدك كلنا أي هو قشو لوضع بوان عذا مركز على كل حال انت يعني انت سواء انت درين كيجاهن ونآمنسنها مركز قضية ده هذا أصول له عشيخه مرتي من كان وحوجاء وما يقو إيه والله بدها إيه نين كان مرتي بهالكي محيه هذا أي سكوت هاجيهين وحكده حيهرته إن لفهمه عجيب ولا ددنا سيدا بدنا واحد أوقاتان يعني تي اسكوعديغا كلية مارتي بهالكي محمود ددكو وحبكم ييلا اسكوعديغا كلية ددكو وحبكم ييلا حتى وحويان هدي عرورتادا iyo dumarkaaga hadii ay dareemayaan inaad u cadaalad sameynaynin way khilaftooda waa kugu gariifaya ma kugu xanaan waxyaalaha aan ogaado bid tajriba aan ku ogaado waxa weeyaan yani cunuga yarka aheed adiga dhashay hadii qalad uu galay uu dareemayo inaad ku dishay wallahi inuu sin cuqdad ka qaadeen bal waxa dhacaysa asagu inuu ku soo noqdo laakiin hadaad gardaro ku disho cunugaasi ooyintana ma joojinaayo weligiisna ma ilooba fiiriya wabillahi calay aniga waxaan xusuustaa waa horoon maarta aan yaraa ayaa waxa weeyaan dee quraanna waa laygu dili jiray bahalkii maxay ahayd yani qaladaad kalena waa laygu dili jiray laba gooroo aabba aan dareemi jiray inuu gardarro igu dilay aan iloobi kari waay fiiriya laba gooroo aabba oo gardarro igu dilay aan iloobi kari waay markaasaa waxaa dhacday fiiriya mar dhow oo aan xamar aan isu nimid oo hadde niman wax bartay oo maaragtay yani dowladnimo galay oo asagiyaa fiiri asagiyaa iloobi waayey isagii naftiisii asuu iiga cudur daarto maandhow laba goor aan qalad ku